maalmihii ugu dambeeyay Laascanood waxaa siyaabo kala duwan ugu geeriyooday shakhsiyad caan ka ah magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo aysan jirin ilaa hadda cid loo soo qabtay dilalkooda shakhsiyaadkaasi waxay ku hawbteen dilal maleegan kuwaasi oo lagu dhex dilay bartamaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir oo la hadlayay warbaahinta qaar ayaa sheegay in shacabku ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si ay u fududaato in la soo qabto dadyoga caadaystay dilalka maleegan ee ka dhaca magaalada Laascanood gudoomiyuhu sidoo kale waxa uu sheegay in aysan suurtagal noqon karin in la soo qaban kari waayo dadkii geystay dilalkaasi haddii shacabku ay la shaqeyn lahaayeen laamaha ammaanka shacabka reer Laascanood waxaan leeyahay waan ognahay in aanooyinku ay soo noqdaan mararka qaarkood haddii ayna maamulka la shaqeyn haddii ayna laamaha amniga la shaqeyn haddii ayna wax dilay sheegin haddii ayna meeshu markuu maray ayna sheegin haddii ayna mataqaana gaariga lagu qaaday ayna sheegin oo laamihii amniga iyo maamulka ayna xogta siin wardi waxa way wax qabashadii iyo soo qabashadii way kala maqanta maamulku waxa uu kula shaqeeyaa oo ku tirsan waa shacabkiisa maamulka waxa indhaa u ah ee dhigaha u ah ee tilmaama ee gacan ku dhiglaha sheega ee dambiilaha sheega ee tilmaama waa shacabka deegaanka ee magaalooyinka degan ee mataqaana nool ee waxa weeye xilkaska intiiba hadii la idinka leeyahay oo hortiini dadkii lagu leenayo hardoolka oo hortiina uu ninka ku baxsanay gacan ku dhiglaha oo idin sii dhaxmarayo oo idin sii hooyanayo oo warkii lagu hawlgeli lahaa ama lagu mataqaana lagu dagaalgalay ayna sheegayn tilmaada riyaalow waxa way wax qabadkaygu wuxuu noqonayaa nusqaan noqonaya annaguna waa dhaliilnaana idinkuna dhaliishu waa nala qabtaan war waxaan leenahay waraan nusqaashano annagu haddaan maamulka nahay waad ogtihiino dee gacan ku dhigilayaasha waa qabanaa oo kuwa horaanu qabannay oo marqaataa ka tihiin oo waxa way waad ogtihiin inta aanu gacan ku dhigla qabanay ee gobolka dhibaatada ka geystay haddii midhiya laba baxseen oo kaana idinku aad ka shaqayn weydeen eedi kaliya qaadmino dhamaantoon wada qaadana Xamse Raadeeye Universal TV Laascanood